bismillaahirrahmaanirrahiim kulan wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada daawadayaal warka xogta TV qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda waxbarashada dawladda Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo gaaray Beledweyne si uu xalliyaan khilaafka ka taagan magaaladaasi oo dhaxeeya Yuusuf Dabageed iyo Maxamed Cabdi Waare wafdi iskugu jira wasiirka iyo xildhibaano ka tirsan dawladda Soomaaliya oo gaaray magaalada Cadaadad ee gobolka Galgaduud ra'iisul wasaare Khayre oo sheegay in doorashada Galmudug lagu qabanayo magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug deegaha Muqdisho iyo madaxweyne Farmaajo oo gaaray heshiis ku meel gaar ah ra'iisul wasaare Khayre oo magaalada Dhuusamareeb kula kulmay madaxa xukuumadda Galmudug iyo Macalin Maxamuud maxay ka wada hadleen waad maqli doontaan dawladda Soomaaliya oo qaadacday shirka ka dhacay Nairobi oo dhaxeeya Soomaaliya iyo maamulka Somaliland wasaaradda amniga Jubbaland oo kulan iskugu yeertay musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha maamulka Jubbaland dawladda Soomaaliya oo qaaday tallaabo ka dhan ah dawladda Kenya warka dibadda daawadayaal waxaa ka mid ah boqolaal caruur ah oo laga soo badbaadiyay xadka u dhaxeeya dawladaha Mexico iyo Mareykanka mar kale ku soo dhawaada daawadayaal warka xogta TV haddii aad nagu cusubtay fadlan daawada subscribe saar channelkan si aad u heshiin war xaqiiqooyin ku saabsan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa riix calaamada gambaleelka si ay kugu soo dhacaan wax kasta oo aan channelkan soo gelina hagaajintii aad maqasheen iyo qodobo kale ku soo dhawaada daawadayaal markaan aan ku bilowna magaalada Beledweyne wafdi uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa maanta gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan mas'uuliyiintan gaaray magaaladaas ayaa wax iskugu jiraan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya wasiirro iyo xubno kale waxaana magaalada Beledweyne lagu sameeyay soo dhaweyn heer sare ah taa oo ay ka qayb qaateen mas'uuliyiinta gobolka Hiiraan iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool magaaladaasi xubnahan ka tirsan labada gole ee dawladda oo la horkacay wasiir Goodax ayaa waxa la sheegay ujeedkoodu yahay sidii uga qayb qaadan lahaayeen xal u helidda xiisada kacsan ee dhowrkii toddobaadii u dambeeyay ka taagneed magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya waxaana ay la kulmi doonaan wafdigan gaaray Beledweyne intii ay joogaan magaaladaasi odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan gudoomiyaha xilka laga qaaday Yuusuf Dabageed iyo madaxweynaha maamulka Hiirshabelle Maxamed Cabdi Waare wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa warbaahinta uga warbixiyay safarka ay ku tageen isaga iyo wafdigu hogaaminayay waxaan joognaa magaaladii taariikhigeeda caanka ahayd ee magaalada Beledweyne oo runtii barwaaqo iyo qurux ay ka muuqato ilaahay waa nagu nabad keenay waxaa meeshan socdo wafdi runtii aad u ballaaran oo xildhibaanadii iyo senataradii reer Hiiraan ka kooban hawsheennu iyo muraadkeennu laba iskugu jirtaa inaan deegaankii aan ka dhalannay oo aan xildhibaanka u ahayn inaan ka soo war doonno xaalkiisu siduu yahay iyo arrin maalmahan taagneed inaan xal u helno waxaan rajaynaynaa in ilaahay noo fududeeyo xildhibaanada iyo senatarada halkan ka muuqda ood arkaysaan kulligood intaasaa ka go'an imaatinka Beledweyne wafdiga ka socda dawladda Soomaaliya ayaa wuxuu imaanayaa xilli maalintii shalay uu sheegay Yuusuf Dabageed gudoomiyaha xilka uu ka qaaday Maxamed Cabdi Waare in uu ka badbaado isku daygii saddexaad ee dil la damacsanaa markaana Galmudug wafdi iskugu jira wasiirro xildhibaano kana tirsan dawladda Soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada Cadaadad ee caasimadda ku meel gaarka ah ee maamulka Galmudug xubnahan ka socda dawladda Soomaaliya ayaa waxa garoonka Cadaadad ku soo dhaweeyay mas'uuliyiinta Galmudug xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya shalayna halka tagay iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Cadaadad iyo odayaasha dhaqanka mas'uuliyiintan gaaray Cadaadad ayaa waxa kamid ah wasiir dawlaha wasaaradda howlaha guud ee dib u dhiska xukuumadda Soomaaliya Axmed Kaariye Qorqor xildhibaan Aftiton agaasimaha wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala gudoomiyaha degmada Waabari iyo mas'uuliyiin kale ujeedka safarka ay ku tageen wafdigan magaalada Cadaadad ayaa lagu sheegay inay hordhac u yihiin wafdi ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo maalinta berri ah halka ku wajahan sida la sheegayo dhinaca kale isla wafdigan ayaa maanta waxay la kulmeen markay gaareen magaalada Cadaadad madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo habeenkiisii koobaad xalay ku hoyday muddo sanad iyo bilaa kadib magaalada Cadaadad markaana Dhuusamareeb ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo maalintii shalay heed gaaray magaalada madaxda Galmudug ee Dhuusamareeb ayaa maanta goob fagaaraha kula hadlay boqolaal shacab ah munaasabad aad loo soo agaasimay oo ay ka soo qayb galeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre wasiirro xildhibaano ka tirsan dawladda federaalka madaxa xukuumadda Galmudug mas'uuliyiin ka tirsan Galmudug iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka dhacday maanta barxadda xarunta Inji magaalada Dhuusamareeb
sidoo kale xasan cali kheyre ayaa carabkiisa ku adkeeyey in magaalada dhuusamareeb ay ka dhacayso doorashada madaxtooyada iyo tan baarlamaanka ee maamulka galmudug xilli warqad ka soo baxday madaxweyne xaaf lagu sheegay in doorashada galmudug ay ka dhacaysa magaalada cadaado. markaana muqdisho sida aan ka soo xignay qoraal ay qortay caasimada online ayaa ogaatay in heshiisku meelgaar ay gaareen odayaasha dhaqanka beelaha dega gobolka banaadir iyo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo. heshiiskaas oo ku saabsan go'doon ka saaran magaalada muqdisho. heshiiskan oo aan ku imaan rabitaanka dowladda balse la sheegay inuu ka mid yahay cadaadis la saaray ayaa lagu gaaray madaxtooyada soomaaliya sida inoo xaqiijiyeen ilo wareedyo ku dhowdhow madaxtooyada soomaaliya. malaaqa beelaha abgal iyo odayaal kale oo ka socday waxgaradka gobolka banaadir ayaa madaxweynaha soomaaliya kula kulmay fila soomaaliya toddobaadkan gudihiis waxayna madaxweynaha ku wargeliyeen inaysan ka mas-uul ahayn go'aan kasta oo ay qaataan dadka dega gobolka banaadir intaan ka badanna aysan hortaagnaan karin cabashada dadweynaha. goobta uu shirkun ka dhacay ayaa waxaa ku sugnaa wasiirka amniga soomaaliya xildhibaan maxamed abuukar islow, ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya cali maxamed geedi iyo siyaasiga salaad cali jeelle, kuwaasoo dhammaantood madaxweynaha ku wargeliyey culayska ka haysta oo kala garqaadida dowladda iyo odayaasha. mudana madaxweyne anigu mas-uul kama ahi mana hortaagnaan karo odayaasha iyo shacabka gobolka banaadir oo ku dhow in ay qarxaan caburan awgeed ayuu yidhi imaamka beelaha abgaal sida ay qortay website-ka caasimada online. madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa imaamka iyo dadkii la socday ka dalbaday in dowladda la sugo ilaa 1 luulyo ama toddobaadka xorriyadda kadib ay dowladda soomaaliya furi doonto wadooyinka gobolka banaadir. odayaasha ayaa aqbalay balse waxaa jira warar kale oo sheegaya inaysan xaqiiq ahayn hadalka madaxweynaha ee uu doonayo inuu ku dejiyey imaamka iyo dadka la socda. madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa isku aragti ka ahayn go'aanka madaxweynaha ee furidda wadooyinka waxaana laga yaabaa in aysan suurtagelin ballanqaadka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo. ra-iisul wasaare kheyre ayaa magaalada dhuusamareeb kula kulmay madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan iyo hogaamiyaha guud ee ahlu sunna wal jameeca. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa hooyga magaalada dhuusamareeb uu ka degan yahay waxa uu kulan kula qaatay madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan iyo hogaamiyaha ahlu sunna wal jameeca macalin maxamuud. kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirada amniga, boostada iyo isgaarsiinta, xildhibaano ka soo jeeda deegaanada galmudug iyo wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya cabdi maxamed sabriye qarafaan. ujeedada kulanka ayaa waxaa lagu sheegay inay ahayd sidii loo bilaabi lahaa dib u heshiisiin laga dhex bilaabo bulshada deegaanada maamulka galmudug degan islamarkaana la iskugu diyaariyo qabsoomidda doorashada maamulka. ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayaa sidoo kale la filayaa inuu tago magaalada cadaado ee maamulka galmudug halkaasi ay ku sugan yihiin madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf habeenkii xalay ahaana gaaray magaalada cadaado ee xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka. inkastoo xiisad siyaasadeed oo adag ay ka jirta deegaanada maamulka galmudug ayaa haatanna siyaasiyiinta kasoo jeeda maamulkaasi waxay isku dayayaan inay xaliyaan mushkilada siyaasadeed ee la digtay maamulka galmudug. markana jubbaland, wasaaradda amniga jubbaland ayaa kulan iskugu yeertay musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha maamulka. wasaaradda amniga jubbaland ayaa maanta kulan iskugu yeertay musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha maamulka. magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxaa maanta kulan ku yeeshay wasiirka amniga dowlad goboleedka jubbaland cabdirashiid xasan cabdi nuur janan iyo qaar ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha jubbaland. kulankan oo ka dhacay xarunta wasaaradda amniga jubbaland ayaa waxaa looga hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin ka wada shaqaynta amniga guud iyo doorashooyinka jubbaland oo la filayo in ay dhacaan bisha agoosto ee sanadkan 2019. wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka jubbaland cabdirashiid xasan cabdi nuur janan ayaa musharaxiinta ka dalbaday in maamulka kala shaqeeyaan dhinaca amniga si doorashada ugu dhacdo sidii loogu talagalay. dowladda soomaaliya ayaa qaadacday shirkii ka dhacayay magaalada nairobi inoo dhexeeyey soomaaliya iyo maamulka somalilan. dowladda federaalk soomaaliya ayaa qaadacday shir maanta lagu waday inay ku wada hadlaan maamulka somalilan iyo soomaaliya oo qorsho u ahaa in uu ka dhaco magaalada nairobi. agaasimaha guud ee fila soomaaliya doctor nuur diiriye fuursade ayaa waxa uu yidhi dowladda federaalk soomaaliya kama qaybgelayso shir la sheegay inuu nairobi ka dhacayo balse waxay xaqiijinaysaa diyaar u tahay wadahadal miro dhal ah oo lala furo somalilan marka goobta
ajandaha iyo ka qaybgalayaasha lagu heshiiyo. Hadalka fursada ayaa imaanaya iyadoo saacadihii la soo dhaafay ay jireen warar sheegaya in wakiilka ka kala socda dowladda federaalka iyo maamulka Soomaaliland ay shir ku yeelanayaan magaalada Nairobi. Hagaag dowladda Soomaaliya ayaa qaaday tallaabo ka dhan ah dowladda Kenya. wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya ayaa shaacisay in si weyn uga soo horjeeday in Kenya ay hogaamiso la dagaalanka kooxaha barcadbadeeda Soomaalida. Wasiir Axmed Ciise Cawad oo la hadlay laanta afka Soomaaliga ee FEED ayaa sheegay in go'aanka kooxda xiriirka Soomaaliya ay ku doorteen Kenya uusan u qalmin Soomaaliya isla markaana aysan hogaamin doonin. Sidoo kale wasiirka ayaa xusay in haatan ururka xiriirka Soomaaliya ee la dagaalanka barcadbadeeda uu dhamaaday waqtigiisa isagoo guuleystay. wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa sidoo kale carabka ku dhuftay in Kenya iyo Soomaaliya haatan uu ka dhaxeeyo muran dhinaca badda ah sidaas darteedna aysan suurtagal ahayn in Kenya ay qabato hoggaankaasi. Ugu dambeyn waxa uu beeniyay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya in ciidamada Kenyaan ah ay ilaalinayaan biyaha Soomaaliya balse waxa uu sheegay in ciidamada isku dhaf ah oo ka socda ururka ay yihiin cidda qaban qaabinaysa shaqadaasi. hadalkan ayaa ku soo aadiyay xilli haatan meel xasaasi ah uu marayo dacwadda badda ee u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya taasi oo hortaalla maxkamadda caalamiga iyo ICJ. markaana daawadayaal warkii dibadda boqolaal caruur ah ayaa laga badbaadiyay xadka Mexico iyo Mareykanka u dhaxeeya. 250 caruur muhaajiriin ah ayaa laga soo saaray meel ciriiri badan oo ku taala xuduudda Mexico iyo Mareykanka halkaas oo lagu hayay muddo toddobaadyo ah. qareeno oo garsoore ogolaansho u siiyay inay caruurtan soo arkaan ayaa sheegaya in ilmaha aad loo daayacay. mid ka mid ah qareenada ayaa BBC-da u sheegay in caruurta lagu xiray meel ay qol iyo musqusho isku furan halkaas oo ay seexanayaan waxna ku cunayaan. barta xuduudda ee gobolka Texas ayaa waxaa laga soo warinayaa in 7 qof ay ku dhinteen toddobaadkan gudihiis. dadka dhintay waxaa ku jiray 2 caruur ah. daawadayaal waa naga intaa warkii aad kala socoteen xogta TV.